Sin Rajpur atorihii Hindiya ee isdilay filimkiisii ugu dambeeyay oo soo baxaya bishaan ma bedeli karno xilliga dhalashada iyo dhimashada balse si wanaagsan oo u noolaan karnaa waa sheeko ku jirta filimkiisii ugu dambeeyay uu jilay shishaantii Sin Rajpur ee ciwaankiisu yahay Dil Bejara. Xayeysiinta filimkaasi ayaa la baahiyay Isniintii. Xayeysiinta ayaa ku faaftay baraha bulshada waxaana ammaanay taageerayaashii shishaantii iyo dadkii ay aflaanta iskula jireen. Dad badan ayaa soo qaadanaya qoraalkan ku jira filimka Dil Bejara ee qiirada leh. Filimka wuxuu ku saabsan yahay dareen murugo ama shalayto uu ku dheehan yahay oo ah mid taaftay jilaaga dhintay isagoo da'yar ah. Shishaantii Sin Rajpur taageerayaashiisa ayaa dareenkooda arrintaasi la xiriira ku muujiyay baraha bulshada. Isla markii la baahiyay xayeysiinta filimka waxaa ku baahday baraha bulshada gaar ahaan Twitter-ka oo ay ku soo faafiyeen jiliyaal caan ah. Qaybo ka mid ah filimka iyo sawirada shishaantii Sin Rajpur ayaa la soo bandhigay iyadoo la adeegsanayo halkudhiga #Dil Bejara trailer. Mukesh Jabra oo filimkan soo saaray wuxuu sheegay in jilida filimkani iyo daawashada la soo bandhigay ay qaadatay muddo 2 sano ah. Wuxuu yiri xayeysiinta filimkayga ayaa maanta baahiyay. Waxaan ku faraxsanahay inaan kuu sheego in filimkan uusan wax badan kaaga baahnayn qof kasta oo awoodi doono inuu daawado. Ninka sameeyay muusikada filimka Ar-Rahman wuxuu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray xayeysiis Dil Bejara waa la baahiyay ka noolow sheekadan jacayl. Sidoo kale Nasruddin Siddiqui ayaa yiri daawo filimkan aadka u wanaagsan shaqada shishaantii Sin Rajpur wanaageeda halkan ayaa lagu muujiyay. Priyanka Chopra ayaa sheegtay in filimkan uu yahay u dabaaldega jacayl saaxiibtinimo iyo nolol. Filimka Dil Bejara waxaa internetka la soo gelin doonaa 24 bishan July wuxuuna diyaar noqon doonaa barta Disney Plus Hotstar. Filimka waxaa soo saaray Mukesh Jabra waxaana xidigo ka ah atriishada caanka ah Jana Sangi iyo Atore Shishanti. Filimkiisii midkan ka horeeyay wuxuu ahaa Jichore oo la baahiyay bishii September 2019. Filimkaasi waxaa la jishay Sanjana Kapoor. Baaritaanka la xiriira geeradiisa sida ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta Hindiya, booliska dalkaasi ayaa wada baaritaan la xiriira dhacdadaas. Waxay booliska wareysteen ilaa iyo 3 qof waxaana ka mid ah filim soo saaraha oo muddada isla shaqeynayeen Sanjay Leela Bhansali. Sida wararka sheegayaan Sanjay Leela wuxuu sheegay in weligii uusan gacan bidixayn shishaantii uusana ka reebin ka mid noqoshada jilaaga filimantiisa. Si kastaba waxaa askarta laga soo xigtay in ninkan soo saaraha aflaanta uu sheegay in jilaagaasi uusan la shaqeynin muddo sababa la xiriira inuu mashquul ku ahaa soo saarista Bani. Sidoo kale ninkan iyo jilaaga isdilay islama aysan hadlin tan iyo 2016 wuxuuna sheegay inuusan ka warhayn in dhibaato dhanka maskaxda ay haysatay atoorahaas.